بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أسئلة ما الغزوات التي حدثت في السنة الثامنة من الهجرة أحبتي في الله waxaanu ku soo jirnay kitaabkeena khulaasatu nuuri lyaqiin fii siirati sayidi almursaliin waxaanu soo gaarnay darsiga 56 ee kitaabkeena waxaan soo dhammaynay oon muxuu ahaaye ka soo hadalnay waxyaabihii dhacay sanadkii 8aad qaybo ka mid ah sanadkii 8aad waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahayd ghaswatu mu'ta meesha la yiraahdo iyo khaalid oo ciidankii soo badbaadiyey أسئلة سؤالوين ما الغزوات دولاندي محي أهايين التي كواسو حدثت دعضي في السنة الثامنة سنة كسيديداد هجرد كم امسوها عدد من دت رديسة جهز الرسول رسولك جهزهم الرسول رسولك ودياريي إلى مؤتة مش ليلاد تجهيزك وديار يأبابولت iyo qababaalin qolaba sibay u taqaana isku dubarid wey kam cadadu man dad tiradoodu imisay ahayd jahazahum rasuulu sala allahu calayhi wasalam nabiga eebbe uu abaabulay ama uu qababaaliyey imisay tiradooda ahayd ilaa mu'ta uu u diyaariyey bimaada awsaahum calayhi asalaatu wasalaam muxuu u dardaarmay dardaarankuu siiyey muxuu ahaa maadaa maxay bay wajadu heleen bacda wusuulihim markay soo gaareen kadib ilaa mu'ta markay soo gaareen kadib maxay arkeen ciidan fara badan inay la kulmeen baan soo marnay man akhada araaya calankii yaa qaaday ama bandiiradii bacda zayd bni xaaritha zayd bnu xaarith marka uu shahiiday kadib maadaa maxay buu facala khaalid bnu lwaliid sameeyey bacda an akhada araayata bandiiradii markuu qaaday oo raggii isaga ka horreeyey la laayay muxuu sameeyey waa soo mar adarsu 30 ghaswatu lfatxi furashadii maka la furtay duulaankeeda fii 20 min ramadaan oo 20 marayana la furtay meeshaan in ghaswo laga cabiray khilaaf bay ka qabaan ahlu siyarku maka nabiga xoog buu ku qabsaday mise wuxuu ku qabsaday nabigu dagaal la-aan waxaa loo badan yahay nabiga sal ll ly slam inuu dagaal la-aan ku qabsaday culummadana qoloba meel bay rajxaan qaar waxay leeyiin xoog buu ku qabsaday qaarna xoog kuma qabsanin waxaa ila raajaxsan anigu inuusan dagaal ku qabsanin oo nabiga sal ll ly salam dagaal la-aan uu qabsaday sababuhaa duulaankan lagu soo duulay magaaladan mako sababkeedu wuxuu ahaa anna qurayshan quraysh nimanka la yidhaahdo naqadad way jabiso way burisay shardan heshiis iyo shardi oo min shuruudi sulxi lxudaybiya xudaybiye heshiiskeeda shuruudeeda ka mid ayay jabiyeen waxaan soo marnay sanadkii 6aad ee hijrada in nabiga sal ll ly salam uu la heshiiyey gaaladan qureysheed heshiiskaasna waxaa ka mid ahaa 10 sano inaan la isdagaalin marka hadda waxaa la marayaa sanadkii 8aad 6aad 7aad waa 2 sano ay ballantii ku jireen gaal ballan ma lahaane 2 sano 10 sano heshiiskii loogu talagalay bay 2 sano ku dhameen waayeen ballantii ka baxeen anna qurayshan quraysh naqadad way burisay shardan heshiis iyo shardi oo min shuruudi sulxi lxudaybiya xudaybiya sulaxeed iyo heshiiskeeda ka mid ah ayay buriyeen qaabkay u buriyeen waa kana wasaacaduu waxay caawiyeen quraysh man dad bay caawiyeen man dad bay soo caawiyeen caahada la ballamay hum quraysh la ballamay calaa qitaali man dad dagaalkiibay ku caawiyeen caahada rasuulka la ballamay sala allahu calayhi wasalam meeshaani mantaasi 2 qabiil bay ku dhacaysaa heshiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo quraysh ay heshiiyeen waxaa ka mid ahaa waxaa jiray 2 qabiil oo nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo quraysh
xilfi iyo lalahaa gacansaar lalahaa baa jiray. labadaas qabiil nabigu gacansaar lalahaa oo heshiiska nabigu ku jiray oo dhinaca nabigu ka tirsan yahay. qabiilna dhankan iyo Quraysh buu ka tirsanaayo iyagu gacansaar lalahaayo iyagu ku ballan ahaa. labadaas qabiil waxaa la kala dhihi jiray qabiilatu bani bakar iyo qabiilatu khusaaca. qabiilatu bani bakar waxay xiriir la lahayd nimanka la yiraahdo Quraysh. sidaa daraaddeed Quraysh bay ka tirsanaayeen dadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam heshiiska lagula galay inuu badbaadiyeyna ka mid ahay. oo haddii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la dagaalamo reer bani bakar waxay ka dhigan tahay nabiga inuu ballanti ka baxo Quraysh uu la dagaalamay. qolada kalena waxaa la yiraahdaa reer bani khusaaca la yiraahdaa. reer bani khusaacana waxay ka tirsanaayeen ay xilfi xiriir la lahaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam. oo marka Quraysh haddii reer bani khusaaca ay la dagaalanto waxay ka dhigantahay iyagoo ballanti ka baxay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam gruubkiisa la dagaalamay bay ka dhigan tahay. marka labadaas qabiil oo qabiilna raacsan reer bani khusaaca nabiga heshiis ay kula jiraan ogo waa muslimiin lagama wado heshiis bay kula jiraan. xiriir dagaal baa ka dhaxeeya isdifaac. qolona reer bani bakar la yiraahdo nimankan Quraysh xiriir la lahaa xiriir dagaal iyo isdifaac iyo isnabadgelin ah. labadaas qabiil ka mid oo reer bani bakar ah ayay soo caawisay Quraysh. waxayna ku soo caawiyeen dadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam dhinaciisa ahaa ee reer bani khusaaca ahaa in lala dagaalay ku soo caawiyeen. markii hore hub bay soo siiyeen markii dambena ciidan ay ugu dareen. marka maadaama Quraysh ay soo caawisay reer bani bakar qolada la yiraahdo si qoladaas reer bani bakar ay oola dagaalamaan reer bani khusaaca oo nabiga sallallahu alayhi wasallam gruubkiisa ahaa ballantii sidaas ay uga baxday. kadibna nabiga weerar buu ku qaaday. wasaacaduu Quraysh waxay caawiyeen man qabiil bay caawiyeen. manta waxay ku dhacaysaa reer bani bakar bay caawiyeen. man reer bani bakar bay soo caawiyeen caahada la ballamay reer bani bakarkaasi hum Quraysh la ballamay oo gacansaar dagaal iyo nabadgelyo ah ka dhaxay. in wixii iyaga soo dagaalamo waxyaabahan Soomaalida u taqaano sheegadu inaad qoladan sheegato quud iyo qaraan baa la qaybsato sidaasoo kale ahaayeen oo reer bani bakar waxay ka tirsanaan Quraysh ballan bay la galeen in ay iyagaas ka tirsanaado oo quud iyo qaraan la qaybsadaan. wasaacadu Quraysh waxay caawiyeen man qabiil bay caawiyeen oo reer bani bakar laga wado caahada la ballamay qabiilkaasi hum Quraysh la ballamay oo gacansaar la lahaa waa reer bani bakar. maxay ku caawiyeen calaa qitaali man qabiil la dagaalankiisi bay ku caawiyeen oo laga wado reer bani khusaaca. qabiilkaasoo caahada la ballamay rasuulka la ballamay sallallahu alayhi wasallam oo rasuulka gacansaar la lahaa oo reer bani khusaaca ah. hoos buuna kaaga qoraya. kadibna maxaa dhacay haddii gaaladii Quraysheed ay ballanti ka baxeen oo qabiilkii yaraaya iyaga ka dhex tirsanaa dembigu galay ee garab ku soo siiyeen oo qabiilkii nabiga ku dhex jiray ay weerar ku soo qaadeen ballantii meeshaasay ku dhammaatay. xabad joojintii 10 sano ahayd. sababkan wuxuu ahaa nin reer bani bakar ka mid ah ayaa wuu istaagay isagoo gab yahayo nabiga sallallahu alayhi wasallam in la weerarana gabay ka tirin hayo. nin qabiilkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka tirsanaa reer bani khusaaca ayaa maqlay kadibna wuu istaagay oo qoortu ku dhuftay. nabi maxamed weerarkiisa baa dadka ku dhiirigelinaysa waaba uu dilay. kadibna reer bani bakar oo ninka gabyayay uu ka soo jeeday ayaa qayla dhaansaday waxayna codsadeen Quraysh inay garab ku siiso si nimankani reer bani khusaaca oo ninka dilay weerar ay ugu qaadaan. Quraysh kadibna way ku caawisay ciidan iyo hubba way siisay. nimankii reer bani bakar reer bani khusaaca weerar ku soo qaadeen 20 ruux ka badan bayna ka dileen. kadibna reer bani khusaaca nabiga ay fariin u soo qayla dhaansadeen waxay dhaheen weerar baana lagu soo qaaday nabi ilaahayna difaac ciidan noo soo diray adigana.
nabiga markii warkii loo sheegay wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaan nafteyda ka difaacay waan idinka difaacay reer bani khusaaco. quraysh kadibna way xanaaqday cafwan way shallaytootay dembigaas ay gashay ballanta ay ka baxday. nabiga sala allahu caleyhi wasalam bay oday usoo dirtay la dhihi jiray abuu sufyaanun xarbin oo sanadkanba soo islaami doono. abuu sufyaan nabiga sala allahu alay wasalam buu u yimid wuxuuna ka codsaday ballanta in dib loo cusboonaysiiyo. nabigu wuxuu ku yidhi wax dhacayo isbedeli miyaa jira xaggiina? abuu sufyaan wuxuu yidhi may. nabigu wuxuu yidhi annaguna ballantii baan ku sugannahay. nabiga inay ballanta ka baxeen wuu arkaya laakiin ninkan iska celinaya. abuu sufyaan wuu iska soo laabtay ilaan hadalka meel usii soconaya ma lahan. nabiga sal alla ly salam asxaabtiisu amray marka in safar la galo. abubakar baa yidhi rasuulka ilaahayow innagii quraysh ballan baaba inoo dhexaysay dagaalka muxuu yahay? nabigu haa buu yidhi ballan way noo dhexaysay laakiin ballantii bay jabiyeen oy ka baxeen. marka nabigu weerar isku soo diyaariyey. qiso xanuun badan baa meeshaas ku jirto. ninkii la dhihi jiray xaatib ayaa warqad u qoray halkaa iyo maka dadkii deganaa isagoo u sheegayo nabiga inuu weerar ku soo yahay. qisadiisana muxuu ahay laa tattakhid bilowgeeda looga hadlay. isagii nabigu wixii kala qabsaday cumar bin khadaabiyo. fasaara ilayhim arasuulu sala allahu calayhi waaalihi wasalam. nabigii ayaa u socday nimanka qureysheed bicashrati aalaafi rajulin 10,000 oo nin isagoo wato. 10,000 oo ciidan isagoo nabigu wato. waad arkaysaayo nabigu maalin ka dambe ciidankiisa wuu sii badanaya. isagoo 10,000 oo ciidan wato nabiga weerar ku qaaday. wa kaana nabigu wuxuu ahaa saa'iman mid sooman fa aftara fi ariiqi wadaduu kusii afuray. oo marka nabiga maka uu qabsanayey bil ramadaan bay ahayd. bisha ramadaana waa bilaha guulaha ugu badan muslimiinta ay gaari jireen. nabigu wuu soonaayo jidkuu kusii afuray. walaqiya waxay la kulmeen xuraasul jeyshi ciidanka waardiyayaalkiisa waa ciidankii muslimiinte abuu sufyaan bay la kulmeen fi ariiqi jidkay kula kulmeen. waqad jaaa abuu sufyaan waa yimid yatajasasu isagoo jaajuusahayo baarbaarahayo akhbaara almuslimiina muslimiinta akhbaarteeda. muslimiinta wararkeedii akhbaarteeda isagoo raadinayo ayuu soo baxay ninka la yidhaha abuu sufyaan. jaajuus waa markaas waa gaale. kadibna waardiyaalkii muslimiinta gacanta ku dhigay. qiso dheer buu leeyay naftiis. waqad laqiya waxay la kulmeen xuraasul jeyshi ciidankii muslimiinta kuwii ilaalinayay o waardiyeynayay abaa sufyaan ibni xarbin bay la kulmeen fi ariiqi jidkayna ka soo qabteen. waqad jaaa wuu yimid abuu sufyaan yatajasasu isagoo baarbaarahayo. tii hadda aynu soo marnay oo nabiga in loo soo diray ahayd tan islama lahan. waa mar kale ogow. marka hore odaynimada loo soo diray ma ahan. hadda markaan jaajuus iyo wuxuu rabaa muslimiinta tiradooda iyo meeshay soo mara inuu ogaaduu rabay. akhbaar almuslimiin ayuu raadinay. fa asaruuhu way soo qafaasheen ninkii ahaa abuu sufyaan. dhanka kalena nabiga sodogiisa ahaa way soo qafaasheen oo gacan bay ku soo dhigeen. wa atow bihi ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam. nabigay u keeneen. fa aslama waaba islaamay ninkii la yidhaahdo abuu sufyaan. wa cafaa canhu rasuulu sala allahu calayhi wasalam. nabiga eebbanow iska cafiyey oo lama dilin. uma arsala calayhi asalaatu wasalaam. nabiga eebba wuxuu diray khaalid bna alwaliid ayuu nabiga diray isagoo ciidan wata weeye ogow. liyadkhula khaalid inuu galo makata maka inuu ka soo galo min asfalihaa dhanka hoose. waa marka magaalada laga baxayo wadadii lagaga bixi jiray wiir ka soo gal. wa amarahu nabiga khaalid wuxuu amray allaa yuqaatila inuusan dagaalamin ilaa man qaatalahu ciddii isaga la dagaalanta maahina inuusan dagaal gelin. wuxuu yidhi inagu waan isqaybinaynaa maka adiga qaybta hoose ka soo gal. dagaalna ha samaynin khaalidow. ciddii adiga kula dagaalantuun inaad iska difaacdo iska reebto maahina dagaal kale ha gelin. wa amarahu nabigu wuxuu amray khaalid allaa yuqaatila inuusan dagaalamin oo uusan dagaal magaalada ku gelin ilaa man qaatalahu ciddii isaga la dagaalanto un maahina inuu iska reebo. famanacathu waxaa u diiday ninka la yidhahdo khaalid inuu maka soo galo bacdu alqabaa'ili qabiilo qaarkoodii baa u diiday min addukhuuli gelitaan bayna u diideenoo geli maysid bay dhaheen. faqaatalahum wuu la dagaalamay xataa hazamahum ilaa uu jebiyey. wa dakhala makata makana uu galay. waddadii nabigu uu yidhi ka soo gal ciidan weynoo ka hor yimid ma jirin.
xoogaa kuwa irdaala ama fawdo iyo asxaabu fawda ah yaa isku daya inay Khaalid hor istaagaan kuwiina dhaguhu ku dhuftayo wuu ka ceyriyay meesha sidii uu magaalada ku galay ama rasuulu sallallahu alayhi wasallam ama nabiga alle fa innahu nabigu dakhala wuu soo galay Maka min aclaa Makkata Maka meesheedii saro duleedkeeda uu ka soo galay magaalada Maka laba dhinac baa laga soo gali jiray meel waa meesha hoose ee meelna meesha sare meesha saru nabiga ka soo galay biduuni xarbin dagaal la'aan waana mas'ala isku haysto dagaal muu ku galay mise kuma galin biduuni xarbin dagaal la'aan buu ku galay li'annahu nabigu lam yamnachu uma diidin axadun qofna min dukhuuliha inuu soo galo cid nabiga hor istaagtay oo u diiday inuu soo galo ma ayna jirin sidaa daraaddeed uu nabiga dagaal la'aan soo galay sidaasuu nabiga magaaladii ku qabsaday laga fiijiyey waa hore nabiga sallallahu alayhi wasallam meeqa sano uu moogyahay magaaladan 8 sano ka maqan yahay 8 sano magaaladu ka maqnaa oo aan soo marnay sanadkii 6 inuu haataa cumreysan loo diiday maanta gacantiisay soo gashay laba dhinac bayna muslimiinta weerar kaga soo qaadeen oo ka soo galeen dhinaca waa dhinaca hoose Khaalid buu nabiga yiri ka gal Khaalid xoogaa ishorimaad baa dhinaciisa ka dhacay oon dagaal weyn ahayn ama dhankii nabiga uu ka galo dhanka sare aha waxba dagaal kama dhicin nabiga cid hor istaagtayna ma jirin nabigu waayo oo dhankan sare uga soo galaya culimadu waxay leeyihiin sir kale ku jirto wuxuu ishaarayaa meesha uu galayo Maka ah meel sarreyso sharaf badan qiimo badan inay tahay buu ishaaraya as'ilatun su'aalooyin ma sababu ghazwi al-fathi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam